qaraxyo waaweyn ayaa xalay ka dhacay magaalada Beledweyne kuwaas oo dhaliyay khasaare kala duwan. qaraxa koobaad oo ka dhacay gudaha xerada Lamagalaay oo ay ku dhex yaalaan madaxtooyada iyo xarumaha dawladda ayaa waxaa fuliyay nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa isagoo beegsaday xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi. qaraxa labaad ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa hotel Kamil iyo isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan. Kusimaa taliyaha saldhigga booliiska degmada Beledweyne Bashiir Cadaane ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyay qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada Beledweyne iyo khasaaraha ka dhashay. qaraxa ka dhacay hadda meeshan taaganna isbitaalka hortiisa oo inta ku dhimatana waliba tirkoobkeer aan ahayn ilaa hadda oo dad aad u fara badan ay ku dhamaadeen iyo qaybta siliga oo irida oo idina qarax kale oo ka dhacay oo ismidaamis oo qof jaakad xiran ah marka ilaa hadda ma soo koobi karno dhimashadii intay aheeday laakiin dad aad u fara badan waaye xilli gaaban ay aheeday waxaan leeyahay inta dhimatana Allah u naxariisto dagarqaba qarxiyay tirkoobkii iyo saxdiina waa keeni doonaa haddana waxaan ku shaqo jirnaa wali shaqadii aan ku jirnaa baawar islaamada ku baabaday dadkii hantidada ku baabay waxaan leenahay inta dhimatana qabrigor qare Allah ka siiyo dad qabeelaha soo gaaday ilaa haddana waxaan ku tala jirnaa oo xaqiijintii aan ka rabnay inta dhimashadu tahay iyo inta dhaawac tahay waana soo sheegi doonaa hadduu leeyahay dadka mas'uuliyiinta wallahi waxa ku jiray xildhibaanada oo ku jirtay Aamino xildhibaan musharax kale oo ku jiray oo bartaan ku dhintay oo la yiraahdo dhuxul oo hadda magaciisa aanu kuandana uu sii diri karin wixii marka xaqiijinta dibaan kaga sheegi doonaa warbaahintan la wadaagi doonaa hadduu leeyahay markii khasaaraha dhaawacay tirada rasmiga ah oo hadda haystaan wallahi xil gaaban oo habeenimana waa aheeday tiradii hadda qof walbana qofkii dhaawac ahay oo qofkii dhimashay la carara dad xaafad loola carara isbitaalkii aad aragteen afafkiisu saan yahay isbitaalka aragteen afafkiisu saan yahay oo baabaayba isbitaalka door taagana dadkii dhaawac la geliyahay waa isbitaalkii dhamay baabaaba qaraxi koobaad oo wahay qof ismidaamina oo wuxuu siliga galay qaybta siliga afafka hore qaraxi labaadna wuxuu ahay gaari nooha oo ku qarxay halkan aad arkaysiin oo isbitaalka hortiisa markii labada qaraxsaasi kala ahaayeen dadkii dhimashadooda iyo inta dhaawacana hadda ma xaqiijin karno ma soo control kar dib ku sheegi doonaa hadduu leeyahay qaraxa halkan gaariga ka qarxo kaleeta wuxuu hal mar ka dhacay waa qaraxii waagii Umar Xansh qarax lamida qarax halkan ka dhacay oo gaariga halkan ku qarxay qarax lamida qaraxaas aan ka arkay والله تاس لما حقيقي كرو سومت كوبي كرو إذا صار أنك تيجي ناور باين تقول إن سيد دونا دولا هيدا تركب